dhammaantiin baa waan idin salaamayaa. Waxaan idinku salaamayaa salaantiina qaaliga islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaan ka bacdi maanta mawduuceenu wuxuu ku saabsan yahay xanuunka loo yaqaano qawadka farsi kalar waxa la yiraahdo. Inta badan marka xanuunka qawadku bulshadeena aad buu ugu badan yahay, waana xanuun marka u baahan inaan maanta ka hadalno. xanuunkan aynu maanta isleegi doonaa insha Allah. kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Haddii tahay markii kugu horeysaad soo booqatay channelkeena, subscribe-teena saar, muuqaalkana like garee. way soo dhawaada ardayda insha Allah. Sidaan hore idinku soo sheegay, maanta waxaan ka hadli doonaa mawduuc ku saabsan qawadka. overview farsi kalar baa la yiraahdaa. farsi kalar waa qawadka ayaa loo yaqaanaa. Marka waxaan ka hadli doonaa si guud baan uga hadli doonaa insha Allah wuxuu yahay iyo marka waxa keena iyo calaamadihiisa iyo marka aynu ka hadli doonaa insha Allah. iyo daawada ugu wanaagsan teebay noqonaysaa insha Allah. daawada good drug, daawada ugu wanaagsan loo qaadan karo farsi kalarka ama qawadka dheh, marka daawada loo qaadan karo. what is a farsi color? muxuu yahay marka qawadku muxuu yahay? qawadku wuxuu yahay waa is a common fungal skin infection way. waa xanuun inta badan fungus ku keeno. pathogenka loo yaqaan funguska ayaa keena, waana common, waa ka ugu caansan way. inta badan caused by waxa keena overgrowth of yeast. qofka yeastiga jirkiisa ku jirta, skinkiisa ku jirta laga helo kaasoo overgrowth ku noqota. yeastidana waxa lagu magacaabaa malassezia ayaa la yiraahdaa. waa which naturally waxay si dabiici ah present xaadir ugu tahay on the skin, maqaarkeena ay xaadir markaa ku tahay. haddana si wadno this condition, xaaladan haddaba effect waxay saameysaa xaaladan farsi kalarku waxay saameysaa pigmentation of the skin. kalarkii skinku lahaa ama midabkii uu skinku lahaa ayay markaa saameynaysaa. natiijada ka dhalataana waxa weeye waa discolored patch. qofku wuxuu yeelanayaa calaamado cadcad ayuu markaa yeelanayaa. that can be, calaamadahaasi waxay ahaan karaan lighter, kuwa cad, or ama dark skin bay ahaan karaan. ama qofku patchka calaamadahaasi kuwa cad bay ahaanayaan ama kuwa madmadow. dadka qaar waxay yaqaanaan qofka qawadka qaba inuu calaamado cadcad oo kale yeelanayo kale, se mararka qaar waxaa qofka lagu arki karaa calaamado madmadowna waa la arki karaa. way calaamadaha haddaba lagu arki karo farsi kalarku leeyahay ama qawadku leeyahay, kow waxaa ugu caansan discolored patch. qofku jirkiisu wuxuu yeelanayaa discolored patch color, marka calaamado wuxuu yeelanayaa patches oo cadcad buu yeelanayaa. these patches calaamadahaasi typically occur waxaa inta badan lagu arkaa ereyooyinka chestiga, laabta oo kale qofka waa laga arkaa, back dhabarka waa lagu arkaa, neck qoorta, and shoulder iyo markaa garbaha shoulderska, iyo markaa upper arm iyo gacmaha oo kale markaa waa lagu arkaa. meelahaas inta badan markaa lagu arkaa. haddaan sii wadno qofku wuxuu yeelanayaa male itching, cuncun markaa yar buu yeelanayaa, male itching buu yeelanayaa. causeska maxaa sababa haddaba? waxa inta badan sababa waxa la yiraahdaa overgrowth of yeast. yeastiga qofka jirkiisa skinkiisa ku jirta ee si naturally Ilaahay ugu abuuray, taas oo loo yaqaano malassezia, taasoo overgrowth noqota. heatka, kulaylka iyo humidity-ga uu sababaa. oo inta badan kulaylka iyo dadka huurka ku nooli inta badan cudurkan uu imaan karaa. oo yeelay skin, maqaarkaaga hadduu dufan leeyahay ama skin saliid oo kale leeyahay, iyadana uu kugu imaan kartaa. way risk factor yaa ugu jira xanuunkan oo kale yaa ugu jira risk factor, khatar yaa ugu jira dadka excessive sweeting iska leh, dhididkooda aadka u badan yahay. weakened immune system, qofka difaaciisa jirkiisu hooseeyo. hormonal changeska, qofka marka hormoniskiisu isbedbedelaan oo changes ku dhacaan. marka dadyogaasi marka waxa dhacda inay marka xanuunkan qawadku marka inta badan ay marka khatar ugu jiraan oo qaadi karaan marka. way daawadiisu waxa la yiraahdaa, daawada waa treatmentigiisa laba loo kala qaybiyaa. mid topical horta form badan buu jirtaa. qaar shampoo ayaa jira, qaar marka cream ayaa jira, qaar marka oral baa jira. marka si laban u kala saarana hadda labada ugu yar caansan topicalka oo antifungal. topical antifungalka waa cream, like a cream oo kale weeye. oral antifungalkuna waa like tablet oo kale afka laga qaadanaya. haddaba topical antifungalka waxaa ugu caansan ketoconazole iyo chlorotrimazole, labadaas ugu caansan. oral antifungalskuna waxaa ugu caansan isagana fluconazole, mid la yiraahdo ugu caansan kaniinka. se maanta waxaynu ka hadlaynaa the best treatment ugu wanaagsan wax weeye waa ketoconazole. ayaynu maanta ka hadlaynaa ketoconazole, ayaynu ka hadli doonaa insha Allah. good drug for farsi color waxa weeye daawada ugu wanaagsan qawadka waa ketoconazole weeye.
haddaba ketoconazole maxaa tahay waa antifungal medication weeye waa daawo antifungal oo funguska lagu daaweeyo waxaana loo isticmaalaa to treat in lagu daaweeyo variety of fungal infection waxaa lagu daaweeyaa xanuuno badan oo fungusku keeno kala duwan ayaa lagu daaweeyaa including waxaa inta badan ugu caansan skin infectionska waa skinka inta badan maqaarka ku dhaca xanuunka inta badan maqaarka ku dhaca it's available waxay u jirtaa dawadan several form qaabo kala duwan like cream oo kale waad ku arki karaysaa shampoo oo kale tablet oo kale maanta waxaanu ka hadlaynaa cream iyadoo ah baynu ka hadli doonaa insha Allah ketoconazole cream haddaba how to use sidaba loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa clean and dry the affected area kor meeshii waad nadiifinaysaa waanaad qalajinaysaa meeshii affected areadii meeshii goobtii inta badan xanuunku saameeyey intaa markaad samayso apply a thin layer waxaad marinaysaa meeshii thin layer of a cream xoogaabad marinaysaa cream oo dawadii ah of the affected skin meeshii markaa xanuunku markaa saameeyey gently rub si degan baad markaa ugu xoqaysaa marka inahaas wad saqabkaas u isticmaalaysaa way frequency-ga intaqtiyadan isticmaalayo apply once hal mar baad isticmaalaysaa oo ama twice daily maalintii ama hal mar baad isticmaali kartaa ama laba mar baad isticmaali kartaa caadi ahaanta waxa la yiraahdaa 2 ilaa 4 isbuuc ayaad isticmaali kartaa oo as directed by your doctor doctorka uu kugu sheego ayaad markaa u isticmaalaysaa marka daawadan maxaad ka faantay maxaad si aad ku dari lahayd commentiga insha Allah inoogu reeb aad baad u mahadsantihiin dhamaantiin sida quruxda badan aad markaa ula socoteen mowduucan